Halyeyga reer Spain ee ku guuleystay koobkii adduunka 2010-kii, Andres Iniesta oo go'aansaday inuu ka fariisto ciyaaraha. Andres Iniesta oo dhaliyay goolkii ugu muhiimsanaa taariikhda Spain ayaa go'aansaday inuu ka baxo saaxadda kubadda cagta, waxaana uu si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaa go'aankiisa 8 Oktoobar ee bishan. Talaadada 8 Oktoobar, Andres Iniesta ayaa ku dhawaaqi doona inuu ka fadhiisanayo kubadda cagta, isagoo loo sameyn doono xaflad lagu maamuusayo lambarkiisa 8 ah oo uu dhabarka ku qaatay waayihiisa oo dhan. Jakatoorahan ayaa lagu xasuusan doonaa goolkii koobka adduunka, goolkii taariikhda geliyay xulka qaranka Spain. Inta uu ciyaarayay kubadda cagta, waxa uu saftay 16 kulan, waxa uuna dhaliyay 107 gool, halka uu caawiyay 191 gool. Waxa uu kooxda Barcelona iyo xulka Spain kula guuleystay 35 koob oo koobabka maxalliga ah. Haddii aan kala qaado koobabka uu ku guuleystay, waxa ay kala yihiin 9 ka mid ah horyaalka La Liga, 6 Copa del Rey, 3 Club World Cup, 7 Supercopa de España, 4 Champions League, 3 UEFA Super Cup, 1 World Cup iyo 2 Euro. 23 xilli ciyaareed oo uu ciyaarayay kubadda cagta tan iyo safashadiisii ugu horeysay ee kooxda Barcelona 2002. Halyeygan ayaa ugu dambeyn go'aansaday inuu kabihiisa siibo. Qeybaha hore ee sanadkii tegay 2023, waxa uu ka tirsanaa kooxda Vissel Kobe ee dalka Japan, waxa uuna u dhaqaaqay kooxda Carbeed ee Emirates Club, halkaas oo uu saftay 23 kulan, isagoo u dhaliyay 5 gool oo qura.